Waxay ahayd bartamihii bisha Agoosto xilli abaartu si daran u saameysay kaynta. Cawsku wuu engegay, biyihii badankoodana waxay isu beddeleen godad dhoobo leh. Xayawaankii oo dhanna waxay la daalaa dhacayeen gaajo. Waraabayaashu way caatoobeen, gorgorrayaduna ma awoodi kareen inay duulaan gaajo daran awgeed. Waxaan ahaa wada gawaarida safarka muddo ka badan 10 sano, laakiin weligay ma arag kaynta oo ku jirto xaalad noocan ah. Libaaxyadu waxay bilaabeen inay weeraraan dadka, xoolaha iyo wax walba oo ku jira kaynta. Tuulooyinka u dhow kaynta waxaa si joogto ah laga soo sheegayay in xoolo badan ay ka lumeen iyo in dad badan habeenkii la weeraro. Subax maalmahaas ka mid ah, aniga iyo saaxiibkay Rory waxaan ku baxnay gaarigeena si aan u hubino waddadii aan mari lahayn maalinta xigta. Intii aan soconay, waxaan aragnay 9 libaax oo ku socda buur dhinaceeda. Ma aysan nasanayn sida caadiga ah, balse waxay u muuqdeen kuwo ku jira ugaarsi. Saaxiibkay Rory ayaa igu yidhi, waxaan dareemayaa inay anaga naga ugaarsanayaan. Waxaan ugu jawaabay, waxaa laga yaabaa inay wax kale daba socdaan, laakiin waa inaan ka taxadirnaa. Fiidkii ayaan gaarnay xeradii aan ku hooyan lahayn. Habeenkaas ma jirin cid kale oo nala joogta, anaga oo kaliya ayaana halkaas ku hooyanayay. Ka hor intaanan seexan, waxaan aragnay raadad cusub oo libaaxyo ah oo ku yaalay waddo yar oo ku dhow teendhooyinkeena. Waxaan isku qancinay inaysan na soo weerarayn oo ay buuraha iska joogi doonaan, laakiin waan ku qaldaneen fikirkaas. Saqdii dhexe markii la gaaray, waxaan ka toosay hurdada anigoona dareemay inay bannaanka teendhada wax joogaan. Waxaan maqlay in wax si tartiib ah u neefsanaya, waxa uuna ku tiirsanaa teendhada gadaasheeda. Markii aan si fiican ugu fiirsaday, waxaan garwaaqsaday xaqiiq cabsi badan. Libaax weyn ayaa dhabarka teendhadeeda ku jiifay, ma aanan dhaqaaqin. Markaas ayaan maqlay codkii Roy oo teendhadiisa ka soo qaylinaya, isagoona igu dhahaya, ma soo jeedaa? Waxaa u fiicnayd inuusan hadlin. Isla markiiba libaaxii ayaa dhaqaaqay, isagoona ka kacay teendhadayda. Waxaan ogaa in qori uu ii yaalay, laakiin ma jirin awood aan ku soo qabsado. Libaaxii wuxuu bilaabay inuu hawada uursado, isagoona raadinaya in ugaar ka ag dhowdahay. Anaguna aad ayaan u baqnay. Wax yar kadib, guuxyo kale ayaa ka soo yeeray mugdiga. Ma ahayn hal libaax oo kaliya, koox dhan ayaa xerada soo hareereysay. Mid ayaa ku dhacay gaadhiga, mid kalena wuxuu rogrogay qaboojiyihii cuntada. Waxaan maqlayay qayladooda meel kasta. Roy ayaa si qalad ah u shiday nal madaxa ugu dhegnaa. Iftiinkii waxa uu ka dhex muuqday derbiga teendhadayda. Hooska madaxa libaax lab ah ayaa si cad ugu soo muuqday marada teendhada, wuxuuna ahaa mid aad u weyn. Markaas ayuu si daran u qayliyey, ilaa aan dhawaaqa qayladiisa u adkaysan waayey oo aan aad u gariiray. Dhididna iga imaaday cabsi darteed, xitaa ma aanan neefsan karin. Muddo yar kadib, libaaxad ayaa dhawaaq gaaban samaysay. Isla markiiba, dhammaan kooxdii libaaxyada way dhaqaaqeen. Muddo yar gudahooda, dhammaan dhawaaqyadii way yaraadeen. Waxaan maqlaynay oo kaliya tallaabooyinka oo sii fogaanaya. Anagana ma aanan seexan ilaa waa berigii laga gaaro. Subaxdii markii aan bannaanka u soo baxnay, xeradii waxay u muuqatay meel dagaal ka dhacay. Raadad waaweyn oo libaaxyo ah ayaa meel kasta ku yaalay. Qaboojiyihii cuntada wuu burburay. Roy ayaa intuu la yaabay raadadkii yidhi, walle waxaan ku siganay inay nagu casheeyaan. Wax yar kadib, raadiyihii ayaa soo dhacay. Waxaana loo sheegay in tuulo agteen ahayd xalay nin lagu dilay, xoolana laga qaatay. Raadadka la helayna waxay caddeynayeen in kooxyo libaax ah ay weerarka geysatay. Waxaan markaas fahamnay in libaaxyadii nagu hareereysnaa aysan habeenkaas anaga na ugaarsanayn. Waxay raadinayeen ugaadh kale. Sabab kasta ha ahaatee, habeenkaas waan ka badbaadnay. Isla markiiba waxaan ka dhaqaaqnay halkii ay nafteena halis ku gashay. Halkaas ayayna sheekadeenii ku dhammaatay. Fadlan janaalka subscribe inoo saar, gambalalkana furo si muuqaaladeena xiga ku soo gaaraan. Like-tana ha ka iloowin muuqaalka. Mahadsanid.